farsamada aynu baraniyo xirfadeena gaarka gabigeeda duunyadu gaar uma helaysee aan soo garaad dheer guulahaan ku deeqaa gaar inoo baraysee dufcadii koobaad ayaa maanta ka qalin jabisay dugsiga barashada farsamada gacanta ee Anisa College oo ku yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Ardaydani oo tiradoodu dhammayd 50 arday ayaa bartay 5 farsamo oo kala ahaa cunto karinta, xinnaha, make-upka, qurxinta iyo samaynta keekiska. Munaasabadda qalin jabinta ardayda oo ahayd mid ilyartis qabatay laguna soo bandhigay farsamooyinka casriga ah ee ardayda la baray ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha waxbarashada gaarka ah ee gobolka Togdheer Jaamac Cabdillaahi Cali, xildhibaan Farxaan Cilmi Caalin oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco, waalidiin, haween iyo mas'uuliyiin kale. ugu horreynba waxaa madasha iba furtay maamulaha guud ee dugsigaasi Anisa Muxyidiin Maxamuud iyadoo ka warantay maraaxilkii kala duwan ee uu soo maray dugsigani iyo ardayda maanta qalin jabisay. college-ka haddii aan idiin sheego taariikhdii aan aasaasay waxaan aasaasay 2020 bishii 7-5 waana dafcadii koowaad ee ka baxda imika waxa weeye ardayda ka baxday waa 50 arday oo ka baxay dafcadii ugu horreysay ah 50 hablood oo bartay farsamada gacanta sida xinaha, cunto karinta, make-upka, decoration-ka noocyadiisa kala duwan shanta xirfadood oo farsamada gacanta dhamaantood way barteen aad baan ugu hambalyeynaya farsamada ay barteen runtii wax la barto waxa ugu fiican waa farsamada gacanta haddii aad baratidna wax kasta waad ku qabsan kartaa meel kasta aad joogto ama meel kasta aad tagtid waad ku qabsan kartaa marka cilmiga aad barateen adinkan inaad dadku uga faa'iideysaan adinkan aad naftiina ku anfacdan bad u barateen waana idin hambalyeynaya hambalyo ilaahay idinku anfaco cilmiga aad barateen hadda waxaan qaadan doonaa insha Allah waliba ardaydaas dafcadii koowaad ee naga baxday imikana waxaan qaadan doonaa insha Allah gobolka Burco dhexdiisa arday dafcadii labaad insha Allah maadaama ardayda hore baxday arday cusubna waan qaadan doonaa insha Allah waan soo dhaweynaya ardayda horena waxaan leeyahay hambalyo. geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gaarka ah ee gobolka Togdheer Jaamac Cabdillaahi Cali, xildhibaan Farxaan Cilmi Caalin, waalidiin iyo haween kale iyagoo dugsiga Anisa College ku ammaanay ardayda tacabka badan ay geliyeen ee maanta soo bandhigay farsamooyinka casriga ah ee cunto karinta iyo qurxinta. haddaanu nahay wasaaradda waxbarashada waxaanu hambalyeynaa 50 arday ama 60 ku dhawaadka arday ee ka qalin jabinaya caawa Anisa College oo runtii wixii ay barteen horteennana yaaliin hadday tahay nafaqadii oo kala duwan haddii aad laga ku roon yahay waana idin ducaynaynaa insha Allah taala inay idin sii socoto wax walibana ay idin hirgalaan insha Allah biidnillah. farxaday tahay inaan joogo xafladan bilan runtii ka duwan xafladaha kale waxyaabaha ay kaga duwantay waxaa ka mid ah waa farsamo gacmeedna waan garanaynaa faa'iidada ay leedahay qofka farsamada gacanta bartana sida aynu wada ognahay qofka ajoodo ma aha waxa weeye aqoonta kaliya la isdheer yahay hal halkii uu tagana uu kaga shaqaysan karo sidoo kale mudnaanta ay sii leedahay waxaa ka mid ah waxyaabaha halkan lagu bartay waxay nooga muuqdaa cuntooyinkii kala duwanaa iyo keekii iyo sidoo kale xeeradii oo iyaduna meesha ka maqnayd. Anisa decoration waxay suurto gelinaysaa inaan guriga arooskii si fudud u burburin cilmiga inaynu dalka dib ugu soo celino inaynu dadkeena dib ugu dhigno inaynan halkaa ku ilaawin. Anisa College waxa weeyaan waxay dhaarkaan bilka gooyaan hablaha waxa weeyaan bilan ee ay soo saartay qofku markuu waxa weeyaan aqoon barto waxa weeyaan dhaman laba qof u dhigmaa marka waxaan leenahay iskuulka Anisa College horu socon leenahay macallimada waxa weeyaan iyaduna soo saartay ardaydana waynu baarigeena aniga laba ay dhigta badaydu meel waxan bay marayaan baqal mooyaane Anisa waa caawa waanu aragnaa waa macallimad qaaliya in loo hambalyeeyo iyo in maxay haytay ay sharaf mudan tahay marka waxa weeye waxaanu leenahay hara u sii maray Anisa waanu ku ducaynaynaa haddaan waalidkanahay kuwan iyo qaar ka badanba insha Allah way nooga ka qalin jabin doonaan ardaydan sharafta badan la waalidkeedii haddii aanu nahay kuwa nooga baxay ee noo qalin jabiyayna biidmillaahi kariin Allah ay ku anfaco baan leenahay. gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey kontokii hablood ee ka qalin jabisay dugsigaasi. dugsiga Anisa College wuxuu ku yaalaa
xaafadda abudubay ee magaalada burco cabdirashiid timir maqal muuqa caalamiga ee Hon Cable TV burco